degmo oo hal reer degan yahay ma jirtaba xataa kaaraanta abgaal keliya ma degana jareeraa buuxa carabaa buuxda raxweynaa buuxda midaan dhalay shabaab hadduu noqdo aniga wiilkayga mahdeer iga yahay aakhiro ummaddaanu inta ka soo hari doonta aniga oo ka badbaadi doonta naar ayaan la yaabanahay dadku waa cabaadayaan waxay la cabaadayaan waxa waaye dhibaana lagu hayaa baaritaanna lagu hayaa canaada lagu waxaas wax lagu hayno oo lagu suubinayo ka badan sababtoo ah naftaada la rabaa in la badbaadiyo in la helo nabad sugid yacni magaalada maamulada mas-uuliyiinta guddoomiyaasha degmada cid walba xamar dadka soo galay deegaanka ma sheegayo yaa degan yaa hantiile ah yaa saan ah yaa degaan yaa muxuu ahaa yacni ma ka hadlayo ummaddan socotada ah waa tahay qaybta amniga muqdisho iyadoo waxa aynu ka sheekeynayna ee dagaalo ay ka socdaan dalkii shabaabkii dagaalo culus ay kula jiraan dadka deegaanka oo deegaano badan laga saarayo sidaas oo ay tahayna muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ugu dambeeyay qaraxii sooba ka dhacay bishii aynu soo dhaafnay kaa oo ay ku geeriyoodeen dad ka badan ama dhimashadii dhaawac ay ka soo gaareen qiyaastii dad ka badan 300 qof xagee wax iska qabalayeen iyadoo shabaab dagaalka adag lagula jiro in haddana caasimadii qaraxyo ay gelgelaan oo ciidankii ugu badnaa ay joogaan beere shabaab horta waa sidooda waa argagixiso argagixisana waxa waaye waxa muraadkooda ugu weyn ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa waaye dhib ma dhacay dhib ma geysanay xagga qarax ka suubiya inta qarax ka suubiya xagga wax ku tuura inta bombo ku tuura qarax ma dhacay ma samaynay idaacaddan samana laga sheegay macnaheeda waxa waaye inaan jirno hala ogaado dadku ha cabsadaan gobolka banaadir xamar marka la yidhaahdo xamar horta meel yar ma aha dad badan oo waxaan maqlaa iska hadlaayo oo dhahaayo maxaa la yidhaahdaa xamar muxuu ahaa amnigeeda maa la sugo amnigeeda maa inta laga dhaco amnigeeda maa saa la yeelo war xamar wadamo caalamka laga aqoonsan yahay ayay ka weyn tahay ay ka dad badan tahay xamar khadartaa kubadda ka socoto muqdishoa ka dad badan jabuuti waddanka la yidhaahdo muqdishoa ka dad badan yacni wadamo badan oo caalamka ahna sidaas oo kale meesha marka sidaa dadkeedu yahay dowladdiiyo weli heerkii la rabay aanan gaarin maxaa la yidhaha ummaddii oo aanan ahayn ummad hanuunsan oo dhahaysa waxaan ma qaadanayo aniga yacni markaa xanuunsatid adiga inaad qayliso laakiin marka qofka dhinacaaga fadhiyo qaniinyada lagu dhego oo uu qaylinayo inaad shib ahaato aada aamusnaato dhibaatada ugu weyn ee jirta waa taa yacni arrimo muqdisho ammaankeeda waxaa lagu sugi karaa wacyigelin xooggan oo loo samay dadka khaasatan dhallinyarada iyo haweenka oo fahma shabaab iyo sida la ysaga ilaalinayo shabaab iyo waxa ay yihiin boqol meela yani annaga inaan isku qiyaasno maxaa la yidhaahdaa dowladahan khaliijka oo kale iyo kuwan muxuu ahaa yurub oo kaleenta iyo oo dhaqaalaha aadka u fara badan leh oo wax walba iyo meel walba iyo yacni ammaanka sugi karaaho ma ahan xamar waxa waaye maxaa la yidhaahdaa 17 degmo ay ka kooban tahay degmo walba meeqa boqoloo kun ah ku nool waxaasuu ciidan kala gaari karaa yacni way adkaanaysaa haddana qaraxyadii wax diyaarad lagu keenayo ma ahane waa wax gudaha magaalada lagu dhex samaynayo lagu dhex farsamaynayo haddana ninka baaritaan hala sameeyo marka la yidhaahdo ninkaan wixii kala duugaya itemiska qaraxa samaynayo waxaa laga yaabaa qaarkood
inaysanba yani items caadiya inay yihiin haddii ayagoo caadiya u hayaa caawa 9 saacna waa la isku xirxiraya oo qaraxa laga dhigaya meeshaan marka waxa waaye damiirkii dadka waa inuu soo noolaado waa inuu qof walba yani maxaa la yidhaahdaa saakay haddaad tidhaaho masaajidda xamar ayaan qarxinaya hadday shabaab tidhaaho cid ka yeelaysaa ma jirto masaajidkaas isbahaysigaan tegayaa miinaan ku xirayaa qarax weynaan ka dhex samaynayaa salaada jimcaha marka la isugu yimaado cid kala shaqaynaysaa ma jirto waayo damiirku ma ogola sidaasi lamida dadku waa inay gaaraan heer damiirkooda uusan ogolayn shabaab qof ah inuu qariyo shabaab qof ah inuu u dulqaato shabaab midaan dhalay shabaab hadduu noqdo aniga wiilkayga ma dayru iga yahay waa inuu qofka meesha soo gaaro aniga dayru iga mid yahay sababtoo ah ummadda islaamka ahayduu rabaa inuu laayo yacni dadku waa inay noqdaan dad indhahooda furan yihiin bisaylkaa waa inay dadku soo gaaraan marka laakiin dadku waxay qabaan qaarkood iyadoo lagu dhiban yahay socdaalka muqdisho ee waddooyinkeeda oo aad og tahay in waddo kale adoon lagu istaajin oo aadan marin baaritaan ciidan inaadan mari karin haddana caasimaddii gaar ahaan halbowlihii iyo farismagaalihii magaalada in qarax intaa la eg dad ay ku dhintaan cid mas-uuliyad qaadatay oo xil looga qaaday ama lagu imtixaanay ama xabs loo taxaaban aanay jirin soo mas-uuliyad darro ma lagu tilmaami karo tallaabooyinkii ugu dambeeyey dhacay fiiri mas-uuliyad darro gaara ma ahane waa cillad ay soomaali ka siman tahay oo wada leedahay cilladda soomaali ay leedahay maxay tahay intaa ayay ayaguna shabaabkuna fahmeen intaasayna horta ku shaqaystaan maalmo nabada hadday ku soo maraan qarax aad u xun oo aad u weynay soo wadaan nimankii sababtoo qaraxa markuu dhaco iyo inta la xasuusan yahay qaraxaas xanuunkiisii waa la dadaalayaa meelaha waa firfirin laakiin soomaali maxaa u dhaqana meeshay doontaa hata xamar dheh meel kale dheh 1960kii dheh 70meeyadii dheh 90meeyadii dheh yani haddoo la jooga dheh soomaali maxaa caadi u ah amarka la soo saaro waxa la yidhaahdo waxa saas maahane si kale ma jirto ee lama yeelayo labada maalmoodoo horaa la wadayaa kadib qof kasta ama mas-uul ha ahaado ama shaqaale ha ahaado ama shacab ha ahaadee waa iska dhigayaan waa ka tegayaan adduunkan waxaa arkaysaa safaaradda maraykanka tag nidaamka loo baarayo 20 sano kadib tag wax iska bedelay ma laha isla jidkiyaa lagu marinayaa ibtila marka meeshaan waxay jirtaa waxa waaye bisayl la-aantii dadka oo nin qarax wada ayuu lacag siiyey nin qarax wada ayuu bajaajtiisa ku soo qaaday nin qarax wada ayaa gurigiisa alaab soo dhigtay yacni waxaas waxa waaye kulli waa wada dembiilo waay kulli waa wada eedaysana waay aakhiro ummaddaanu inta ka soo hari doonta aniga oo ka badbaadi doonta naar ayaan la yaabanahay sababta waxa waaye soomaalida sababta waxa waaye yacni carelessnimada ninka aad u jeedo toorey inuu soo qaatay qofkaas qolkaas ku jirana raba inuu ku dhufto haddaad inta fiiriso aad shib ka tidhaahdaan dembiilaa tahay haddaad saaciddo dembiilaa tahay haddaad tooreyda u gadood lacag siiso dembiilaa tahay haddaad muxuu ahaa yani soo waxaad doontaba adiga muxuu ahay haddaabaad og tahayba waaya ummaddii marka midka gurigiisa u seexanayoon danta ka lahayn yani waxaa is leedahay dadka qaar waa xayawaanka waxba ma dhaamaan sababtoo ah waxa waaye gurigiisi waxaa jiifa nin wax qarxinaya warna uma hayo waayo aadan war ugu hayn qofka gurigaaga jiifa sababta waxa waaye yani dan kama laha bajaajtii ku qaadaya waayo bajaajta ugu qaadaysa waayo qofkan bajaajka aad ku qaadaysa muxuu yahay bajaaj hadduu asaga inta gato midkaa asagana wadanaya asagana waa meesheeda yacni maxaa u dhaweynaysaa maxaad raalli uga tahay maxaad lacagta ugu tuuraysaa fiiri hadday ummadda soo jeesato shabaab maxay qaadi karaan waxba ma qaadi karaan hal subaxa la weynayaa laakiin ummaddiiyaanba diyaar u ahayn inay soo jeesto bisaylkaaba ma gaarsiisnaba
dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ka jirta waa midda Soomaali xooggeedina ama aan iraahdo Central iyo South Somalia dhulkan la isku yiraahdo dadkii halkaan ay soo wada buuxsameen xamar ay wada joogaan marka dhulkii kala shabaab ay uga soo carareen shaqo la'aan ay uga soo carareen meel muxuu ahaa yacni laga raadiyo muxuu ahay yacni nolol laga samaysan karo ayaa loo baahan yahay taasaana dhibka ugu weyn yacni oo xamar oo confusionka ka jira marka xamar in la kala xirxiro si fiican loo kala xirxiro qof walba guri walba la lambariyo guri walba qofka degan iyo kan iska leh labadaba la diiwaan geliyo qofka mas'uulka ka ah gurigaas dad kala nool la diiwaan geliyo qof walba oo gurigaas ku noolna ID card la siiyo subaxaas dariiqa qofkii socdo la qabto la yiraahdo ID-gaadi kan maxaa ka soo doontay kaaraana degantahay wiil yaro 15 jir hata 16 jir hata intee joogtaa Madiina socotaa maxaa ka soo doontay maxaa ka haysaa yacni magaalada dhinaceeda kala degantahay 6 saac habeenimo waa duurkaas wareegaysa waay deegaankaaga ma meesha ka shaqeynaysan ma aha yani adduunka waa la xisaabay waa la isdaba galaa hay'adda nabad sugidda oo ayadana si aad u xoogan weliba loo maalgeliyo si aad u xoogan loo ballaariyo dadku waa cabaadayaan waxay la cabaadayaan waxa waaye dhibaana lagu hayaa baaritaanna lagu hayaa canaada lagu waxaas wax lagu hayno oo lagu suubinayo ka badan sababtoo ah naftaada la rabaa in la badbaadiyo ummadaana la rabaa naftooda in la badbaadiyo see lagu badbaadinaya xukun adag in dadka loola jeesto isla markaana la wacyi geliyo dantiisana uu fahmo meesha ay ku jirto ayaa dalkan iyo xamar iyo lagu hagaajin karaa habacsanaantana lala xisaabtamo subax walba askari walba meeshii lagu ogaa haddii laga waayo hebel waaye maanta yaa akhay iska dhaaf mar dambe ha u noqonin yaa adduunka wax la yiraahdo ma jiraan mar dambe ha u noqonin wax la yiraahdo adduunka ma jiraan saacadaas lagu arko habacsanaan isla saacadaas sababtoo ah waxa habacsanaantiisa ku halaabi kara iyo qofka waxa yani waxa daran oo culus yani habacsanaanta iyo dhibka ka imaan kara qofkaas waa inuu hore u socdo marka waa in shaqada laga eriyo waa in la xiro waa in maxkamad la geeyo waay shaqadaada uga tagtay yani maxaa la yiraahdaa ciidamada kulli inta aan ka fahamsanahay askariga meel lagu og yahay hadduu meesha ka maqnaado ama waardiyaha lagu og yahay hadduu maqnaado horaa laga xiraa war midkaan jidka la istaagay ee ka tagaaya kor in ayaga in loo suubiyo basaasin nabad sugid baarta waxa la baarayo dadkii maaha waxa la baarayo kuwa shaqada loo diray inay shaqada sida ahayd u wataan waa meeshaana ay qoorta soo qaban karaan oo soo xiri karaan sababta waxay tahay baabuurka inta soo maraya baaraa la yiri miduu yaqaan haye ii waran wajigiisu yaqaana wax kaloo yaqaana ma laha ii waran seetaan fiicanta kor ugu salaamaya haa warniyo xaalkaagu see yahay maanta waa wareersanahay $1 loo tuuray waxaa gaariga gadaal saaran maxaa la yiraahdaa qarax markii ugu yar tahay 200 oo qof oo dilaya waa in la helo marka nabad sugid askarta kor kala socota iyo ciidanka in la helo nabad sugid yani magaalada maamulada mas'uuliyiinta gudoomiyaasha degmada cid walba kor in laga ilaalinayo la soo qabanayo naftiisa oo uu ka baqayo leeyahay anaaba leexiraaba haddaan daayo qofkan haddaan shaqadan qaban anaa leexira haddaan booskan ka tago waa leexira dadku waa inay qaabka ku shaqeynayaan oo nidaam ku bartaan ma jiro wax iska shaqeynaya oo sidii la rabay iska ah oo wax walba saas ah waxaasu ilaahay waa samayn karay oo kun fayakun waayo wax yani dhibo laakiin dad yani wax walba ciqaab inay leeyihiin iyo in la fiirinayo intaas ayaa daba taala socaalir bal waxaad suubisidaa la arkaya marka taasoo kale loo baahan yahay dadka waxaa loo baahan yahay nabad sugiddu tabarteedu waa yar tahay in la kordhiyaan qabaa anigu waa tahay weli amniga muqdishoan ka hadlaynaa waxaa jira maalmihii dambe siyaasiyiin iyo dad qaba aragti ah in qaab qabiil loo sugo amniga muqdisho iyadoo la eegayo in degmooyinka
sida ay guddoomiyaasha qabaa'ilka ugu kala magacaaban yihiin in qabaa'il dhinacaas inta loo hubeeyo ama ugu yaraan loo howlgeliyo si gooniya macawisley muqdisho looga horgeliyo ama wax la mid ah aragti noocaasay qabeen ma ka hirgeli kartaa caasimadda maya sababtana waa kuu sheegaa waxaan ka hadlaynaa qabiil soo ma aha xamar raxweyn cid uga badan ma jirto xamar dadka soo galay degaanka ma sheegayo yaa degan yaa hantiile ah yaa saan ah yaa degaan yaa muxuu ahaa yani ma ka hadlayo ummaddan socotada ah cid ka badan reerkaas ma jirto dad soo barakacayna u badan yihiin qowmiyad dhan oo soo barakacday waa abaaraha dhibaatooyinka mashaakilka waxaasoo idin qabiilaa lagu raadinaya oo see qabiilka maxaan ka fahmi karaaba xamar ma yaa tahay la ysdhahayaa waxaas ma aha waxaas waxa waaye arrinta loo baahan yahay waxa waaye nabad sugid daacad ah dhalinyaro ah dabagal wax la yidhaahdo samaysa hadda qof shabaab noqon kara iyo waxaasaa la dabagalaa ciidamada iyo waxaan kulli waa ku filnaanayaan shaqada xamar iyo amnigeeda inay sugaan laakiin waa goorma markay og yihiin ayaga in lagu daba jiro wax axsaan oo loo suubinayana aysan jirin hadduu haba yaraatee ka leexdo jidkii intaa haddii la helo xamar 5 daqiiqa muxuu ahaa yani muddo fudud ayaa ammaankeeda lagu sugi karaa guryaha la baaraya kana la baaraya iyo waxaas waa warwareejinayaan xamar waa naqaanaa meeshaan waxaa loo baahan yahay waxa waaye ciidamada naftooda in la kontaroolo mas-uuliyiintii nafteeda in la muxuu ahaa ninkaan xafiiskii ma tagaa ma shaqeeyaa dadkii ma qaabilaa siday tahay mau dhaqmaa nidaamka ma maraa kan ma maraa in lasoo basaasaa loo baahan yahay kadibna naftiisa uu ku xirmaba hadduu sharcigii nidaamkii yani ka leexanayo marka xamar shabaabku kuuma joogayaba meel gaara xamar degmo aanan dad qaraaba aniga ku lahayn ma laha 17 degmo sooma 17 degmo aanan caawa hadday dana iga gasho aanan u hoyan karin oonan qaraabo aysan ii joogin ma laha waxaan ka wadaa tusaale waxaan usoo qaadayaa dadkii marka saasay isugu dhex qasan yihiin yaad qabiilkee baare marka adiga of course qabaa'ilku mid ay samayn karaano dadkooda mas-uuliyiinta ah iyo ciidamadooda iyo waa is yaqaanaana waan isdhihi karaan magaaladan yaa ku jiro annaga ah oo shabaab ah wiilkii hebel ahay wiilkii oo hebel dhalay gabartii saan ahayd odaygii saan ahaa waayahay kuwaas inta ciidanka haystaan waa soo qaban karaan magaalada waa ka dhex yani raadin karaan qabiil walbana taa waa samayn karaan laakiin degmadii aan qaab qabiil oo anigu reer hebel haddaan ahay reer hebel keliya maa degan degmadan degmo oo hal reer degan yahay ma jirtaba xataa kaaraanta abgaal keliya ma degana jareeraa buuxa carabaa buuxda raxweynaa buuxda waxa waaye marka yani waxna waxa waaye qaabkii dowladnimada iyo nidaamka waxna reerka wiilka adeerka aan u ahay aniga ee shabaabka ah kaasoo meeshuu joogaba hala soo qabta aniga waa dhihi karaa qaybayna ka qaadanaysaa sugidda ammaanka laakiin sugidda ammaanka waxa waaye dadkii ku shaqayn lahaa mas-uuliyiinta iyo dadka shaqada loo diro iyo askarta dadkii ayaga ku shaqayn lahaa ayaa meesha waxaad moodaa inay dhinacaas wax ka liitaan ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysay aan kusoo xiran waraysiga waxaan u laabanaynaa gobolka hiiraan kacdoonka gobolka waxaa hogaaminayay guddoomiye cali jeyte cismaan maxaad ku tilmaami lahayd hogaaminta cali jeyte muxuuse bilad ahaan mudan yahay maadaama deegaan badan uu ka saaray al-shabaab isagoo horkacaya dadka deegaanka iyo ciidanka wallaahi anigu dadaalka iyo hawsha uu wado cali jeyte guddoomiyaha gobolka hiiraan oo midaan raalli ka ahay waay
oo midaan mar walba bogaadinayana waay dee muxuu ahaa cali jeyte dadkii uu mas-uulka ka ahaay oo la laynayo oo hortiisa lagu dilayo oo uu kor istaagayo meydkoodii oo uu kor istaagay maxaa la yidhaahdaa baabuurtii lagu gubay arrimahaasaa hadda keenayba inuu yidhaahdo war intaan ka badan ma dhowran karna awalan 2 jeer qof dhimanayo uusan jirine aan soconno oo aan waxaan iska celinno waa u dadaalay ilaahayna waa la garab galay dowladda soomaaliya garab weyn ayay ka geysatay howsha ayada ah wuxuuna wax walba ah waqtiga ayaa saamaxa shacabkii oo markaan yacni meeshii ugu dambeysay gaaray dowlad dhexe oo uu madaxweyne ka noqdeen inay ka go-an tahay in arrintan asagiiyo dadkii uu mas-uulka ka ahaa hortiisii lagu laayooba yacni kor istaagay yacni fiiri waxa waaye basalkii bahalkan laysku xirxirayo laysku toosinayo oo kale intaa markay isku toostay hadda dabcan waxay saacideen hawshii uu qabanayo cali jeyte guddoomiye hore waa u ahaa waxaan laga yaabi lahaa dagaaladaas hadduu hore u galo inuu yacni ay socon waayaan oo heerkii la rabay ay gaari waayaan laakiin heerkan inay gaaraan waxa waaye intaas aan kuu sheegay oo isku toostay ilaahoo nimankii shabaab ahaa garabkooda ka baxay isaga oo dhiiraday marka ammaanuu mudan yahay dhiiradashadaa uu dhiiraday dadaalkaa uu dadaalay halgankaa uu galay ilaa iyo inta la xoreynayo meel walba sida uu taagnaa oo intaasuu lahaa socda hogaamintiisu runtii ee ku saabsan dhinaca dagaalka waxay ahayd mid aad iyo aad u sarreysa oo loo baahnaa dee taallo iyo bilad sharaf waa mudan yahay bas waxay tahay soomaalidu ma is abaal marisaa soomaalidu ma is abaal marisaa soomaalidu ma is ogoshahay geesiyaal ma leenahay aan ku wada qanacsannahay yacni de taariikhdaaba waxay iska ahaydba yacni qof walba in reer hebel waayo inta la yidhaahdo bas meeshaas lagu celiyo lagu yacni maahane dee dalkaana wuxuu lahaan lahaaba sida waddamada caalamka oo kale geesi hebel geesi hebel geesi hebel dad la yidhaahdo oo la xurmeeyo oo ayaga iska daayay yacni dhashoodii la xurmeeyo laakiin dee soomaali beriyaad waxaad arkaysaa waxaa waaye reer hebel loo ahaay reer hebela hadday kuwa sidaas dhahaya ayba joogaan haddadaan aan hadlayno oo soomaaliya oo idil ay guddoomiyaha gobolka hiiraan muxuu ahay cali jeyte ay sidaa u leeyihiin muxuu ahaa waa ninkaas waa halgamay kuwa hadda jooga oo dhahaya oo hiiraan degan oo jooga oo dhahaya muxuu ahaa ninkaanu reerkiisa keliya marka waxaa waaye soomaalidu inaysan is aqoonsan inaysan is indho buuxin inaysan raalli iska isma dhiirigeliso cali jeyte haddii maanta la dhiirigeliyo oo intaa iyo ka badan la sameeyo yacni lagu garab istaago oo lagu sharfo oo bilad sharafka iyo waxa iyo kulli guddoomiyaal badan oo gobollo kuwa degmooyin badanaa dhihi lahaa aniguna waa inaan sharafta gaaraa oo sidaasoo kale u dadaali lahaa laakiin dabkii yare soo ifaba haddii la kor istaago cagta la saaroo la damiyo de waxa waaye yacni hore u socoshadii ummad waxay meel ku gaartaa ku horumartaa inay hore u socoto waa maqashay kulley hore socod iyo dib u socod annaga dib u socod waa tahay ugu dambeyn oday soomaaliyeed baa tahay oo ilaa heer darajadiisu gaartay in madaxweyne maamul uu soo noqdo xilal hore wasiira soo qabtay taladaada ugu dambeysay aada siinayso shacabka muqdisho iyo guud ahaan soomaalida dagaalka kula jirta al-shabaab muxuu yahay waxaan leeyahay soomaaliya ka faa'iidaysta maanta madaxweyne ay ka go-an tahay shabaab dalka inuu ka sifeeyo si aad nabad ugu noolaataano 6 saac habeenimo waxaa xasuustaa allah u naxariistay aabbay
oo anoo magaalada ka imid oo markaas dee dhalinyaro form 4 meelahaasaan aan dugsi saranahay imid nin adiga ahalka ah qaraabada ah wasiir waayo ayo geeridiisaa lasoo sheegay nin weyna oday oo ahaa oo soomaalina magaca kule ninka qofka geeriyooday xawaalana iska badaa hormuud u ahaan jiray allah u naxariisto Sheekh Cali Jimcaale waxaan soo galay marka gurigii qiyaastii 6 saac waa habeenimo baabuur yareera waa lagu socod shidaal lagu shubaayo gaarigii oo taangigii la buuxinayo waa wasiir hal qof oo kale raacaya ma laha hal wiil oo gacanyaro u ah iyo darawalka iyo asaga wasiirka ah mid waxaa aabahay maxay tahay saacadan intee aabba waxaa dhintay waa allah u naxariista Sheekh Cali Jimcaale beledweyne u socdaa waay xamar ka baxay waa 6 saac habeenimo waay waa Soomaaliya waa laga soo saari karaa heerka madaxweynaha hala dabagalo madaxweynahaasay ka go'an tahay arrintaas war dib waxba ha u dhigan war taariikh ka tag qofka dadka Soomaalida ah sidaasaan leeyahay shabaabna waaba aragnayba buunsho waxa uma dhaamaan la aada kaliya u baahan yihiin dabcan haddii la isku fiirsado dhibaa ka imaan kara haddii reerka kacay ee dagaalka galay ee nimankan iska celiyey haddaysan reeraha dhinacyadiisa ah sidaa samayn waa un maxuu ahay saci caddaa iyo saci madoobaa iyo oo kale sheekada noqonaysa oo waayo kuwii kale waa shibtooda waa ma dhaqaaqin soo ma aha waxaan awood iyo xoog leenaa isugu geyno nimankan aan dhibaatayn markay dhibaateeyaan adigii aamusnaa ma ku dhaafayaan marka ma ku dhaafayaan berri igu soo kici karaa waa kan naftiisa asagana aan hadda maxaa faylaha ka goyno midkan kale berri dambe soo kacay faylaha aan ka goyno waxa waaye marka dagaalka yaan la isku fiirsanin fursadana ha laga faa'iideysto nimanku waa niyad jabeen inta ay niyad jabsan yihiin oo ay nafla caariga leeyihiin aan isdhaafino